rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo dagaallo ka socday maalmahan aagga Dhuusamareb degmada Dhuusamareb oo ay ka wadeen qaybta 12aad gaar ahaan guutada 15aad iyo qutubyo ka tirsan gorgor iyo guud ahaan ciidamada qarabka sida qutubyo ka kala tirsan runtii waxa weerar lagu qaaday meel yiraahdo dhago oo hore looga saaray 3 bari ka hor waxay isku abaabuleen meel yiraahdo Labi Dulle oo Dhuusamareb u jirta 47 kiiloomitir runtii ciidanku wuxuu isu abaabulay in uu soo cirif jiro baabi'iyo nimanka argagixisada ee nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed in ay ka gudubto dagaal ugu gudubto horumar u diiday meelo badan oo aad la socotaan wigi dhaweytana dhowrkii bari la soo dhaafayna shabeellada hoose lagu jabiyo lagu baabi'iyay meel walbana go'aansaday inay caruurta iyo ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed u diidaan inay ka gudbaan dagaal 30 sano ayay dagaal ummadda Soomaaliyeed ku jirtaa go'aansanay abaabul ah in aanu inta xilliga roobka aan la gaarin aan ku qaadno fadhiyadooda weeraro aanu la beegsanayno awoodooda iyo quwadooda meeshaas Sakay dagaal baa ka dhacay hadda saacadan aan kula hadlahay ayaa gacanta lagu dhigay Labi Dulle aad baa lagu baabi'iyay khasaaro waaweyn waa loo geystay horeyna halka shabeellada hoose waxa looga dilay amiiro dhowr amiir baa looga dilay oo ka mid yahay taariikh ninka la yiraahdo oo ka mid yahay Dubbad ayaa looga dilay oo labadaba bariga ku dhintay xogtooda gadaal ka soo ogaanay maantana rag amiirana waa laga laayay hubna waa laga furtay deegaankii ay ku fideen waa laga qabsaday qorshaha iyaguna waxa weeye inaanu sii fidino dagaalka oo aanan ka harin ilaa inta dhulka ay hay Soomaalida ka haystaan ama dhulka ay ku jiraan deegaankaas ay ka haystaan gobolka Galgaduud iyo Mudug aanu gacanta uga dhigno insha Allah Sakay dagaal cusub oo ka weynkii hore oo ka baaxad ballaaran oo khasaarihii hore u geysay ayaga uga badan baanu Sakay halka maanta ka dhacay hadda aan kula hadlaayana xabadu waa socotaa laakiin guud ahaan deegaankii oo dhan iyo Labi Dulle oo dhan gacanta looga dhigay waxaan halkaan rabaa inaan uga amaano ama amaan uga gudbiyo xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka dhulka qaybta 12aad guutada 15aad oo xooggeedu hawsha fulinaysa iyo ciidanka gorgor meesha ku jira iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee hawshaas inay galayna halkaan aan uga bogaadiyo ciidamadu meel ay joogaan ba inaan ku wargeliyo ama ku dhiirigeliyo guulaha ay soo hoynayaan way helayaan insha Allah abaalgudkooda xaq Ilaahay bay ka helayaan dawladooda ka helayaan madaxdooda ka helayaan insha Allah waxaan leeyahay hawshiina laba cadowga Soomaaliyeedna dhabarka ka jabiyo guul waxaa lagu gaaraa markii ay iskaashadaan ciidamada qalabka sida oo dagaalamayo naftooda u huraya dalkooda iyo shacabkooda ay iskaashadaan oo shacabku noqdo mid ciidanka biyo la daba socda mid xogta iyo warka u soo sheegaya sida haddaba ay u sameeyeen mid awoodooda iyo garab istaagooda siinaya haddii aanu iskaashano waxaan aaminsanahay inaysan haltaa ka oo dhulka Soomaaliyeed ah nabadiidkaas aan leenahay in kaar waxa ku dhacdo waxa adeegsanaya gacmo shisheeye dalka intay meel uga jiraan kama harayno insha Allah aniga kula hadlaaya wali waxaan ku suganahay saacada shabeellada hoose meelo ka mid ah dagaalkii hore oo dhacay ka soko waxaanu baaxsi ku haynay meelihii ay isku aruursadeen oo dhaawaca iyo ay isku aruursadeen waxaan dul istaagnay nala xaqiijiyay meel tuulo ah oo 25 qof oo laba ajnabi ay tahay waliba mid ka mid oo sanaftii ka dhacay dadkii shacabka ku qasbeen in god lagu wada xabaalo markaas jabba ku dhacay waliba daba soconaa dhaawacoodii baanu kala soo reebanay ayagana insha Allah waa ka sifaynayna shabeellada hoose iyo labada shabeellaba guud ahaan dalkoo dhanba bulshada Soomaaliyeed meel joogaanba waxaan leeyahay garabsada isku tashada adinkii ciidanku waa wiilashiinii annagana waxaa tihiin shacabka iyo hooyooyinka iyaga tihiin aanu isgarabsano aan hal meel uga soo wada jeesano cadowga nabadiidka balaayadu lagu soo dalkoodii iyo dadkoodii ku soo dirtay hadda subaxdii ay soo galeen arinta la yaab kala rabna shacabka Soomaaliyeed u sheegno waxay soo galeen salaada subaxdu aan la tukan waxaana la isku gaaray qoraxda soo baxday
hadday ilaahay ka baqayaan may salaada tukadaan marka ummadii waxayna u sheeganayaan inay islaam yihiin salaadii ilaahayna ma tukanayaan oo waxay leynayaan dad Soomaaliyeed iyo walaalahood bay leynayaan dadkaas marka ma islaamba ma ahan waxay aaminsan yihiin salaada inuu ka kor qaadi karo hogaamiyahooda ama amiirkooda uu ka kor qaadi karo sida iyagu ay noo sheegteen taasuna diinta islaamka iyo shariicada islaamka meel ay ku taala ma jirto salaada ilaahay baa iska leh cid kale oo la lehna ma jirto cid kor qaadi kartaana ma jirto nabi baan kor qaadi karin qof bini aadan aan kor qaadi karin